بسم الله ورسامة ديجيتال ميديا وين سلامة دمانتي صوروا هذا وين سلامة مر لبعض صوروا هذا أدي عاد مردين سلامة يا ملك صوت شوكتان قارهان dadka warsamo digital media ku xiran iyo kuwa damacsan inay ku xirmaan iyo kuwa dhageysanaya aad iyo aad baan idin salaamay waxaan jecelahay intii aan wali ku xirayn warsamo digital media aan la socon inay ku soo dabaalmaan dhageystaan arrimaha muhiimka aan ku soo qaadno warsamo digital media qoraal ahaan iyo video clip waxaan rabaa inaan caawa idinla wadaago dhacdooyin muhiim oo ka dhacay gobolka gaar ahaan Puntland iyo agagaarkeeda in ka yar 24 saac oo lasoo dhaafay ayaa Puntland qaybo ka mid ah u dareereen diiwaangelintii doorashooyinka hal qof iyo hal cod ee golayaasha deegaanka maanta boosaasay ka socotay xarunta tijaarada ama ganacsiga ugu weyn ee Puntland ee ku taala badda cas ama meesha loo yaqaan Red Sea in ku dhow 300 kilomitir ba ayay Garowe u jiraan 250 kilomitir waxaa kaloo qorshaysan in magaalooyinka kalena saas oo kale diiwaangelintii si nabadgelya uga dhacdo 37 degmo ayaa la filayaa in doorashadaas golayaasha deegaanku ay ka dhacdo si nabad u dhacdo dabadeedna loo gudbo doorashooyinkii kale waagii laga soo jeesto golayaasha deegaanka ma aha hadda in la isku khaldo golayaasha deegaanka iyo doorashooyinka golaha shacabka iyo golaha wakiilada iyo madaxweynaha ama madaxtooyada dhanka kale waxaa ka socotay xabad aan arxan lahayn ee taliska Hargeysa ka waday magaalada Laascaanood iyo agagaarkeeda arrin taariikhi ah maanta dhacday waa laga saaray isla shalayba maantana waa la isasiira dadkii baa isugu soo barnaamijay magaalada gudaheeda Laascaano ciidankii taliska Hargeysa waa laga saaray halkaas magaalada gudaheeda waxa isugu soo baxay dad badan oo ka mid ahaa qaybihii kacdoonka sameeyay gaar ahaan waxa loo yaqaano guuto koowaad oo dumarka iyo caruurta ah raggiina maleeshooyinkii ama ciidamadii rayidka ahaa hay'adaha rayidka ah maaragtay ganacsatada ilaalada u ahaa ay ku darmeen
halkaana arrin taariikhi ka dhacday oo laga saaray Somaliland magaalada Laascaano. يعني haddii la isku soo xoriyay magaaladii waa laga xoreeyay ciidamadii cadaadiska ee Hargeysa. magaalada bartankeeda waxaa dadkii la kulmay oo khudbad u jeediyay garaad jaamac garaad Ismaaciil. aad iyo aad uu garaadku u mahadsan yahay dowrkii uu ka qaatay kacdoonkan la ka dhacay Laascaano ee dadku ay isaga xoreynayaan cadaadis badownimo ah oo xabad kulul dadkii loogu jawaabay. حتى سوشيال ميديا هذاك وحقوري وحلو داد يا مندير يا مالك الشيء دولكا وغوي قلبات سوماليا. أرين تاريخي ويا وأرين نواركتي أنو ذا شغنو وأرين رنتي كعدون كي كسعودي مقالة Laascaano la filayay inay saa ku dhamaanayso. hase yeeshee dee dabcan ciidankii Hargeyso ama taliska Hargeysa kama wada dhammaan gobolka Sool. waxaa laga yaabaa inay agagaarka kulaalayaan magaalada Laascaano. taasuna waxay u baahan tahay in halganka la sii raaciyo oo ciidankaas gabi ahaanba isaga baxaan meelaha kala gedisan ee fariisimada ay ka dhigteen gobolka Sool. magaaladu waxay u baahan tahay waxa la yiraahdo law and order inay isku dhex yaacdo maaha in la sameeyo ciidamo madani ah oo ilaaliya ganacsatada, in magaalada laga qaado dhagaxyada iyo jidgooyada la dhigay oo dadkii kacay ay dhigeen, ganacsigii inuu furmo, isgaarsiintii la soo celiyo, magaaladu ay ku soo laabato magaalo caadi ah oo siday ahayd intaan uusan ku imaan cadaadiska taliska Hargeysa. soo dhaweynaynaa tilaabadaas haddaanu nahay Warsamo Digital Media. waxaan jeclahay idinkuna inaan nagula soo biidhaan in loo hambaliyeeyo dadka reer Laascaanood oo geesiyiinta ah iyo madax dhaqameedyadooda ugu horeeyo garaad jaamac garaad Ismaaciil. bal wixii soo kordhan oo isla socodsiinaynaa, hase yeeshee waa u hambaliyeynaynaa dadweynaha reer Laascaano. aad iyo aad baan idiin salaamayaa. walaalayaal intaana ka bixin waxaan jeclahay inaad ku soo xirantaan Warsamo Digital Media, aad soo dhaweysaan, saaxiibadiin la wadaagtaan, ku xiraataan, sidaana aan isla socono. nabad.